اللهم جملني بقلب رحيم وعقل حكيم ونفس صبورة، واجعل بسمتي عادة وحديثي عبادة وحياتي سعادة وخاتمتي شهادة. السلام عليكم asxaabteyda qaaliga kusoo dhawaada youtube channelkeena waa mar kale ii muuqaal cusub. maanta waxaan idinla wadaagi doonaa qaabka aad malayga u duubto. waa qaab fudud oo aad ka heli doontaan. fadlan haddii aad youtube channelkeyga ku cusubtahay nagu soo biir oo kamid noqo asxaabteyda. haddii aad horey noola joogtana waa kaaga mahadcelinayaa. xoogaa waa hargebsanaha maanta haddii codkayga aa si fiican u maqli weysaan ama xabeeb zaid uu ku jirto waxaa waaye hargaba caadi ahayna socda maalmahan. ilaahay qof walba xanuunsan ha caafiyo, inta caafimaadka qabtana allah u barakeeyo oo siyaadiyo. meeshaan waxaa rabaa marka ugu hore inaan kusoo karsado bariiskii oo malayga lagu cuni lahaa. malayga waxaa fiican waxa dhan markaa karsatid waxa ugu dambeeya inaad ka dhigtid inuu xoogaa badan uu yaalo ma fiicno. bariiska marka ugu horeeya basal aan kusoo daray, kadibna xawaajiyaal ayaan kusoo shubayaa. maraq digaagiisa ayaan kusoo darayaa asagana. waxaan kaloo ku darayaa heel iyo qorfe. waxaan rabaa caraf zaid inuu i siiyo. maanta alaabtan waxaa la dhahaa naftaada casuum, wax yaroo waxaa waaye iska macaan. intaana si fiican iskugu shiilayaa. waxaan rabaa inay xoogaa si fiican ay isku dhex gasho. biyar ayaan kusoo daray waayo xawaajiga markaa ku shubtid haddaadan qoyaan yar u yeelin wuu kaa gubanayaa oo digsiga salkiisu ku dhagayaa. in muddaa uu soo karsamayay basasha si fiican ay u bislaatay. ani ma jecli bariiska oo basal ay ka muuqato markuu bislaado. basasha si fiican u soo karaysaa. ujeedaan hadda diyaar waaye. kabsar caleen iyo tuun iyo tunneed ayaan kusoo daray iyadana. final hadda bariiskii ayaan kusoo shubay. bariiska xoogaa muddo biyo ila yeelay hal saac camal ayuu biyo ila yaalay. kadibna waa kusoo daray. waxaan rabaa inaan xoogaa aan shiilo. aan bariiska inta badan qaabkan ayaan u karsadaa. marar badan rutiinkeyga waa ku aragteen. maantana waa idinkaga sii faa'iideynayaa insha Allah. cusbo yar ayaan kusoo daray. waxaan rabaa inuu dhanaan fiican oo isii noqdo. bariiska markuu diyaar noo noqdo kadib meeshaan waxaan ku diyaarsanayaa jibsigii. waxaan kusoo daray cusbo yar si aan dhanaan fiican uga dhigo. kadibna waxaa waaye si fiican isku dhex gelinayaa. jibsi waxaa waqti badan ay ma u baahno. haddana aniga wax yar ayaa rabaa inaan dubo oo aan badnayn. intaas kadib saliid ayaan dabka kusoo shubay. waxaan sugayaa inta ay kasoo kulaanayso. jibsiga aan waxaan jeclahay inaan dabka zaid ugu dheereeyo oo dabkii oo aad u kulul ku dubo. kadibna meeshaan ayaan asaga dhan kusoo wada shubayaa. inta uu jibsiga ii bislaanayo ayaa meeshaan malayga xawaajiyaasha ku marinayaa. waxaan rabaa markaan xawaajiga aan mariyo inaan hore aan saliidii oo diyaar aan kasii saaro. xawaaji waxaan kusoo shubay markii ugu horeeya huruud. waxaan kaloo kusoo daray wax yar oo barbarooni shiidan. sidoo kale waxaan ku daray xawaajiyaal. waxaan kaloo ku darayaa maraq digaag soo dhanaan yar igu siiyo. cusbana waa ku darsan kartaa xoogaa inuu dhanaan yahay fiican. intaan ayaan isku soo darayaa. aad xawaajiyaasha haysid waa isticmaali kartaa. intaana si fiican aan isku dhex gelinayaa. qaleelkaas rabaa inaan u isticmaalo. qaleelka ayaan inta badan aan u samaystaa. qalalan xawaajiyaasha inaan si fiican u mariyo. kadibna waxaa waaye saliida dabka soo saaray. saliid wax badan maraba inaan ku kariyo, wax yar ayaan ku shubayaa. intaas kadib markii ay soo kulaatana waxaa waaye xabad xabada ugu soo ridayaa. malayga karis badan ma u baahno. xoogaa waxaa ku filan 2 daqiiqo. dhinac walba 2 daqiiqo hadaa ka dubtid enough waaye. anigana biseel fiican oo aad u jilcaan rabaa inuu ii noqdo. malayga kariskiisa aad u fudud yahay. waxaa waaye qof aqoon way yar tahay. waqti badan ma qaadanayo sida jikinka camal waaye. aad u simple u yahay. qaabkan ayaan asidan u soo wada dubayaa hadduu Ilaahay yiraahdo.
markii uu kasoo bislaaday dhinacan haddana waxaan u gudinayaa dhinacii kale aadna waa u ilaalinayaa marab inuu iga go'go'o ama iga kala daato waayo malayga aad u softi u yahay soo hadba dhinac ayaa u gudinayaa dhinac kalena waxaan sugayaa adi 2 daqiiqo camal intuu kasoo bislaanayo ugu dambeyn hada diyaar ayuu inoo yahay waxaa la gaaray waqtigii aan ka bixin lahaa bisel fiican oo softi ah ayuu ii noqday sidii aan rabay ayuu ii noqday maasha Allah ilaahay waxaan ka baryaa qof kasta oo aan haysanay inuu siiyo inta haysatan oo ilaahay u barakeeyo qof walba nolosha uu ku haminayo inuu ilaahay gaarsiiyo waxa waay markaa karisid oo ka bixinaysid inaa aad uga taxadirtid waayo uu jilcan yahay waxaa dhici karta inuu kaa kala go'go'o soo finally sidan quruxda badan ayuu diyaar ku yahay uu kusoo bislaaday intaas kadib markii aan soo diyaariyay bariiskii jibsigii malaygii wixii dhan sidan quruxda badan ayay kusoo baxeen maasha Allah aad u macaana lagama sheekeyn karin mooskii lagu cuni lahaa wixii dhan alxamdulillah ilaahay ayaa mar walba iskale mahad iskale nicmooyinka uuna siiyay dhan asaan uga mahad celinayaa qaabkan fudud haddii aadan horay u tijaabinin tijaabi waa cunto yar oo aad naftaada ku casuumi kartid malayga noocan haddana lafo badan ma lahan ifan xitaa ilmaha haddii kuu joogaan waa siin kartaa haddii aad halkan soo gaarto waa kaaga mahad celinaya daawashada muuqaalkan fadlan haddii aad ku cusub tahay youtube-kayga subscribe saar haddii aad horay iila joogtana mar walba waad mahadsan tahay